anoo maalin dhaweyd buug akhrisanaya ayaan waxaan soo gaaray hadal taariikhda dib ii celiyey, macnaha xusuus igu beeray. hadalkan wuxuu ahaa, markaad adigu biyahaaga dhaansato ayaad dhibic kastoo ka mida qiimaha ay leedahay garataa. waxaan soo xusuustay yaraantaydii, qofkii baadiye soo maray baa garan karaya. marka ceel fog reerka looga soo dhaamiyo biyo oo la keeno guriga, qof walbaaba qofka kale wuxuu u dardaarmaa war biyaha ha la tashiilo, ha la ilaaliyo, ha la dhowro iyo wixii la mida. macnaha waxyaabaha muhiimka maahane yaan biyaha lagu ciyaarin. reer baadiyuhu dhibic kastoo biyaha ay haystaan ka mida haddaysan dee meel ceel u dhow deganayn, qiimaha ay leedahay iyaga uunbaa garan kara. innagu halkan magaalada markaynu joogno waxaa laga yaabaa weesada markaynu xataa weese qaadanayno inaynaan biyaha u fiirsan. waxaa laga yaabaa tuubadu inay iska furan tahay oo intaad wejiga dhaqayso intii 3 qof ay ku weysaysato inay tuubada biyuhu ay iska socdaan. haddii qofina ka mida lagu oran lahaa biyahaasu waa kuwii kuugu dambeeyey, sidee ula dhaqmi lahayn? waa dhaqaalayn lahayn. waxaa laga yaabaa caag intaad biyaha xirtood raadsato inaad u dhigan lahayd oo wax yar aad shuban lahayd ood ku weysaysato, ilaan in yar baaba weesada qofka ku filan. lacagtaada bal ka waran, tanaad adigu soo shaqaystaan sheegaya maahan mid bilaash kuugu timid la iska kaasiiyey. tan adigu aad soo shaqaysatay eed u soo dhididay, ee saacadaha badan u soo taagnayd, ee caguhu kugu xanuuneen, eed u rafaaday, la mid maahan tan uu qof iska kaasiiyo. waxaadna halkaa ka fahmaysaa qofku waxa uu isagu shaqaystay baa kala qiimo badan intay doonaanba ha la ekaadina wax la iska siiyey. adduunkan aynu maanta joogno maxaa kuugu qaalisan? naftaada weligaa su-aashaa ma weydiisay? waa laga yaabaa dadka qaar inay yidhahdaan carruurtayda, hooyaday, baabuurkayga, lacagtayda, naftayda iyo wixii la mida. laakiin dhammaantoodba shay la'aantii aysan jiri karin. oo waxaa jira in badanoo dadka ka mida maanta agtooda si sahlan ay u bixiyaan xoolaha aad u soo dhididay, aad soo shaqaysatay, u soo rafaaday, saacado badan gelisay, xaaladaha qaar adoo daalan, xaaladaha qaar adoo murugaysan, xaaladaha qaar adoo kaa kala daadsan tahay aad ku keentay. si bilaasha ma isaga bixin kartaa? maya. haddaba agteenna waxa ku dayacani waa wakhtigan ilaahayna siiyey. qofku hadduu rabo inuu lacag shaqeeyo, qofku hadduu rabo inuu jirkiisa ka shaqeeyo, qofku hadduu rabo inuu reer dhiso, qofku hadduu rabo inuu guul nolosha tan ka gaaro, dadka maanta adduunyada tan wax xaqiijiyey dhammaantood dad u fiirsato waxay ka wada siman yihiin inay wakhtigooda ilaaliyaan. bal ka warran marka wakhtigaagu uu dayacan yahay. macnaha waxaa la yaab badan qofku marka uu faqri yahay haddana wakhtigiisu iska dayacan yahay, wax uu qabtana uusan aqoon. waagu intuu kuu bariyo waxaad samaysid ma taqaanid. habeenkii waad murugaysan tahay, waxaad isweydiin maantoo dhan wakhtigaagu muxuu ku baxay. waxyaabo badanoo haddaba waxaa jira aad qaban karayso. fursado fara badan baa ku ag yaalla. fursado fara badan oo maanta haddii aad gacanta u qaadi lahayd, wakhtina aad gelin lahayd, hubaal aad guul ku gaari lahayd baa jira meel kastood caalamka ka joogto. laakiin isweydiintu waxay tahay nolosha fursadaheeda qaaliga sidee lagu helaa? sida keliya ee dhammaan bini'aadamka dunida jooga ay ka siman yihiin waa raadi. haddaadan adigu raadin kuuma imaanayso. gurigaaga in qof bannaanka uu taagan yahay waxaad garataa marka albaabka la soo garaaco, iyadoo rabbigeen uu irsaaqadda bixiyo, awood buuxdana u leeyahay qof kastoo ina ka mida inuu siiyo wax kastoo nolosha rabo, buu haddana wuxuu ina yidhi raadiya. haddaadan raadin kuuma imaanayso. waxaan u malinayaa qof kasta oo caqli fayow qabaa wuu fahmi karaa haddaadan shaygaa u dhaqaaqin, oodan u kicin, oodan wakhti siinin, oodan u dadaalin, heli maysid. waxyaabaha qofka noloshiisa dib u dhaca ku keena midka u horreeya uguna weyn waa naftiisa. waxaa laga yaabaa inaad aaminsan tahay cadow baad leedahay, laakiin cadowgaaga koobaadba waa ruuxdan kugu jirta. waxaad wax la qaban weyday ma bini'aadamka kalaa? waxaad wax la noqon weyday ma bini'aadamka kalaa? haddaad xataa leedahay bini'aadamku inay i kaalmeeyaan bay ahayd, isweydiin naftaada ma u qalantahay inay ku kaalmeeyaan? cadaalad naftaada u samee. haddaad leedahay awoodaad cid ku kaalmayso, 2 qofna laguu soo bandhigo, hase yeeshee mid ka midihii uu dayacan yahay, wakhtigiisu waa iska dayacan yahay, internetkaasu iskaga jiraa, ciyaaruu iska daawadaa, farba ma kululeeyo, waa isma lure. ninna gelinna waxbuu bartaa, gelinna waa shaqaystaa, waa nin halgamaya. ilaahay baan kugu dhaarsheeyey keebaad kaalmayn lahayd. walow labaduba ay ka siman yihiin xaaladday ku jiraan nolosha oo aysan waxba haysan, waxaan hubaa kan dadaalayaad kaalmayn lahayd. waxaad og tahay kaa kaalmadiisu inay miro dhalayso, laakiin kan kale awooddii ilaahay siiyey baaba agtiisa ma dhalays ku ah. ma kula tahay inuu meel gaarayo? ma kula tahay waxa aad siiso inuu wax ka dhalinayo? waa maya. soomaalidu waxay tidhaahdaa qof meeli u caddahay meeli ka madow. qofku marka uu rabo inuu wax ka guul gaaro, guuldarrooyinku ma xadeeyaan.
waan kuu hubaa waxyaabo qaar nolosha aad isku daydood ku guuldarraysatay guuldarradii u horraysay kaa soo gaartay baad adigu isku qiyaastay marka qofku uu guuldarro isku qeexana waxyaabaha intaa ka dambeeyo dhan wuu ku guuldarraystaa waayo awooddii uu isugu dayi lahaa iyo dhiiranaantiiba kuma jirto haddaba koow waxaad ka bilowdaa inaad ogaatood aqbasho inaadan dhammaystirnayn bini'aadamka dunida joogaa qof walbaana halkaa waa kaala mid waxa dadku ay ku kala tagsan yihiin marka waa meeshan waa marka iyagu guulaha ay gaarayaan adigu naftaada aad xaqirto ood isku qiyaasayso ood leeda qofkaasuba waa gaaray anigu malaha umaan dhalan aniga cid igu kaalmaynaysa ma jirto waa marka adigu aad isciisho ee maaha bini'aadamka kale waxa ay gaarayaan muhiimadda xooggeeda waxaad isugu geysaa inaad naftaada isdul taagto waxaa dhici karta qofkaas wuxuu samaynaya inaadan bas samaynin haddii adigu aad weli samaynaysa waxa qofkaas uu samaynaya hase yeeshee aad guul darraysanaysana weli wakhtigii lagugu talagalay maad gaarin inay nafi kugu jirto waagu kuu baryey ilaahay kuu oggolaaday inaad dhulkan ku dul socoto xikmad iyo ujeeddo weyn baa ku jirta shayga aad rabto inaad gaarto ama inaad xaqiijiso ama shahaado ha noqoto ama xirfad ha noqoto ama guur ha noqoto waxay doonta ha noqoto in yar bay kuu jirtaa inta aad dadaalayso laakiin maalinta keliya la odhan karo qofku waa quustay noloshana waa ka dhacay waa marka naftaada gudaheeda waxa ku jira cadowyadahi ay ku rifaan ood iyaga isu dhiibtay ku afduubtaan waxaanaad maqlaysaa bini'aadamka dulmi badnidooda iyagoo odhanaya wakhtigaa wax saacida adduunyadaa qofka kan ciishay adduunkaa halkaa idhigay laakiin mid igahoo adduunku cid meel ma dhigo wakhtiguna saacidaadda keliya uu ku saacidayaa waa inuu jiro oo keliya ood isticmaasho ee ma ahan inuu wakhtigu ku kaalmaynayo oo isagu wax kuu qabanayo adiguna iska huruddo xaqiiqada runtahay waxay tahay qof walbaaba camalka iyo waxa uu samaynayo iyo meesha uu tiigsanayo nolosha wuxuu ku gaaraa waa shaqada uu qabanayo waa hadba hawlkarnimadiisu sida ay tahay waa hadba sida uu wax u joogtaynayo walikullin darajaatun mimaa camiluu haddaadan dadaalayn oo waxba qabanaynin innaba aadan waxba isku dayaynin weligaaba halkaa calaacal oo suugaanta ka dhex baar wakhtigaa wax saacida adduunyadaa qofka kan ciishay adduunkaa meel dhigay badi haddaad u fiirsato dadka hadalladaa ku hadlayana waxaad arkaysaa qof wax isku daya ma ahan waayo wax walba wuu ka cabsanaya waayo naftiisii kuma kalsoona waayo isagaaba isxaqirayba isagaaba qof agtiisa intaanba cid kale odhan waad liidataa isagaa naftiisa subax walba la waabariistay inuu liito fursadaha nolosha aad raadinayso meelaha naftu ay ka caajisan tahay meelaha naftu ay dhibsanayso meelaha ciriiriga meelaha naftu ay ka wahsanayso ayay ku jiraan